mar dhaweyd baan qaraacay waxa la ii sheegay inay quraacatay oo quraac loo geeyey iyo wax kasta u baahnayd marka way quraacatay sida la ii sheegay waxaa loo diray saaka adeegayaashii bulshada ee wasaaradda si aan markaa xaalkeeda aan sidaan wax uga qaban lahayn aanu galno waayo anagu hudo oo keliyadii kama shaqayno boqolaal aamusan oo hudo oo kala ah waanu ka shaqaynaa. hadda waxaan ku sugannahay xafiiska waaxda arrimaha bulshada ee wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada iyo qoyska Somaliland marwo Filsan Xuseen Khaliif oon wax ka weydiin doono xaaladihii ugu dambeeyay ee kiiskii Huda Xuseen oo ahayd gabadh dhalinyaro ah oo shalay qabsatay baraha bulshada ku xidhiidho iyadoona sheegtay in ay nafta iska qaadi doonto taasi oo bulshada qaybaheeda kala duwan ay fariimo kala duwan soo dirayaan isla markaasna ay ka codsanayaan in aanay istilin gabadhaasi oo la waayay balse markii dambe laga helay magaalada Gabiley ciidamada booliskuna ay gacanta ku soo dhigeen waxaana ay geeyeen gurigii martida bal haddaba xaaladihii ugu dambeeyay ee xaaladeeda iyo halka ay ku sugan tahayba waxaan wax ka weydiin doonaa marwo Filsan Xuseen Khaliif kusoo dhaw sidii loo wada soconay kiiskii walaasheen shalay waxay imika ku sugan tahay guriga martida Gabiley ilaa saaka waanu la hadlaynay oo xaalkeeda waan ka warhaynaa way quraacatay way iska fiicantay alxamdulilah saaka waxaanu dirnay laba group oo kamid ah shaqaalaha wasaaradda group social workers ama adeegayaal bulsho si ay u tagaan gurigii Huda waayo sidii Huda familkeedu ka dhawaajiyeen ama habra wadaagteed oo hadlaysan daawanayay waxay sheegtay in hooyadeed ay xanuunsanayso aabaheedna uu xanuunsanayo sidoo kale aduu problem family inuu jiro markaasi arrinkaasi loo soo eego loona soo hubiyo waxaa loo diray saaka adeegayaashii bulshada ee wasaaradda si aan markaa xaalkeeda aan sidaan wax uga qaban lahayn aanu galno sidoo kale group kale ayaa baxay oo iyaguna kamid ah adeegayaasha bulshada oo ku tababaran kiisaska noocan oo kale ah si ay u siiyaan adeeg la talin maskaxeed waayo dawayna wada arkaynay ma ogtahay inanta yar xaaladeeda markii uu yeesay dhamaanteena way ina wada taabatay marka si bal horta loo dejiyo ula soo sheekaystaan ay u caawiyaan wixii ay u qaban karaan waxaan u dirnay saaka Gabiley wayna ku sii socdaan iyagoo kaashanaya wasaaradii shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska gobolka Gabiley tiimanka dirteen aad u kala dirteen hoyga ay ku nooleed Huda Xuseen iyo sidoo kale halka ay ku sugan tahay oo ah guriga martida Gabiley tiimamkaas khibrad nooceeya ay u leeyihiin in ay baaraan kiisaska noocan oo waa dad u tababaran waxa ku jira dad dhowr sanadood soo baranayay adeega bulshada sidoo kale waxa jira shaqaale qaatay tababaro social support oo counseling siin doona la talin maskaxeed ka caawin doona walaalaha Huda marka waa shaqaale aad u tababaran sidoo kale kuwan guriga tagay Huda qoyskoodii iyaguna waa shaqaale saas oo kale ah oo xirfad u leh waayo anagu Huda oo keliyadii kama shaqayno boqolaal aamusan oo hudo oo kala ah waanu ka shaqaynaa oo ay wasaaraddu ay caawisaa media lama wadaagno anagoo ilaalinayna anshaxa maxaa la yiraahdaa qofka marka waxa jira boqolaal nagu soo booqda xafiiska oo noo imaada boqolaal soo hadla waayo waxa jira call center baa jira nalaga soo garaaco oo 24 hour online ah marka dadku waxay soo qaraacaan telefoonadaasi emergency-ga ah sidoo kalena qaar baa socod noogu imaada marka boqolaal bay caawisaa wasaaraddu Huda oo kala ah laakiin waxa jira mid iyo laba iyo saddex la soo dhigo social media anagoo waan ka hawlgalnaa oo de ma shaacina markasta ku mahad celinaya saaka inaad xafiiska ugu soo booqatay Filsan waxa la sheegay
inantaasi inay cuntada ay joojisay habeenkii xalay ahayd sida ay caddeeyeen ciidamada booliska somalilan bal iyada arrintaasi maxaad kala socotaa inantaasi saaka xuma cuntay xalay cuntadii se ma qaadatay markii la geeyo guriga martida xamse aad iyo aad baad u mahadsan tahay mar dhoweyd baan qaraacay waxaa la ii sheegay inay qureecatay oo qureec loo geeyey iyo wax kastay u baahnayd marka way qureecatay sida la ii sheegay bulshadeenu waa dad wanaagsan waxaad arkaysaa kiis baa dhacaya dhammaan way ka wada damqanayaan waxaad moodaa inay dadku wada yihiin horta dee hal qoraynu wada nahayba laakiin haddana aad baan uga helay dadka somalilan hadduu mid ka mida imiga uu qof ku tacadiyo dhammaan waxaad arkaysaa bulshadiiyo ka falcelinayso aad u falanqaynaysa marka aad iyo aad baan bulshadana ugu mahad celinayaa siday inantaa kiiskeyga naloo soo gaarsiiyeen cid kastoo na soo gaarsiisay iyo cid kastoo farriimo ii soo diraysay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa xamse xayd wararka lanta afka soomaaliga ee CBA TV hargeysa واو اسبوع كيسو في عايز صاحبي waad ka heshay sooma ما شاء الله صح ما عادش بسيط waxaan ku shubtay xidhmo furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 5 iyo 10 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa